kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo aad naga daawanaysaa ku soo dhawaada barnaamijkeena habeennimo waa habeennimo Arbaca Khamiis ay soo galayso qodobo xiiso leh ayaynu barnaamijka ku haynaa dagaalka halka uu marayo iyo wararkii ugu dambeeyay way noo soo socdaan dhammaan haddaba marka hore waxaynu ku bilaabaynaa Al Jazeera hadda oo aan idin la hadlayo waxay soo qoreen war degdeg ah mas'uuliyiin sare oo Israa'iiliyiin ah ayaa waxaa la yaab ku noqotay awoodda Xisbullah ay la soo baxday warnimanku inay baaba'een oo aysan tabar lahayn oo aysan waxba iska dhicin karin intaasoo aan juqjuqaynaynay garaacayna waxba naguma soo rideen nimanka khalaas Xasan Nasrullah waa la dilay waa kala tageen everyone islayn madaxa gacmaha saaranay gantaalo cumqiga Israa'iil ku dhacaya drones daran doorri u dhacaya ciidamo infantry oo godadka ka soo baxaya xaalku xilaadeen kan Iran waxa nooga daranay dheenkan ayagoo lugaynaya Xisbullah ee Tel Aviv imaanayeen wallahi hada beesha laga hortagay Al Jazeera qoraysa saasa loo qoraya haddaba marka aan idin tuso telefishinka Al Jazeera goordho war degdeg ayuu qoray kanaalka 13 ee Israa'iiliyiintu ay leeyihiin ayaa wuxuu soo xigtay caawa mas'uuliyiin sare oo Israa'iiliyiin ah waxay yiraahdeen annagu uma aanan malaynayn in Xisbullah ay dagaal sidan oo kale iyagoo awood badan ay ka qayb gali karaan waa telefishinkood waa kanaal 13 oo mas'uuliyiin Israa'iiliyiin ka hadlayaan meesha marka waxa ka dhacaya ciyaarihiisa idin la noqonin wax ciyaara iyo la noqonin iyagiya ka hadlaya Jazeera waxa leedahay channelka 13 warkaasi daay marka meesha maxaa nooga soo baxay nimanka Xisbullah la yiraahdo niman ciyaar ma annaga dhan ay isweydiin jireen wada ogtiin barnaamijka Lubnaan la duqay war Xisbullah warriba kano xagee galeen aan ku hayn hadda maxaa la leeyahay infantry hadhiin gantaal hadhiin drone hadhiin jugta ku hayaan nimanka meesha kaliya ay ka baqaysan Israa'iil waa halkaas iyagoo lugaynaya soo galayaan Israa'iil de Iran waaba ka fogtahay dawlado kale iyo dhul ilaahiya u dhaxay laakiin nimanka infantryga ku soo galaa meeshan iyagoo socda nimankan waa leeyahay halkaas marka sheekadu waa ka xuntahay wixii shiica ahaa oo iyaguna adduunka joogo dhan oo wadaadka taageersanaa iyaguna meel ay ka soo aadaan ayay raadinayaan waxay leeyihiin halkaas anagu shahaadadiya soo qaadanayna marka qodobka halkaas ay kaga gudbaynaa qodobka labaad ee caawad Netanyahu waxa leeyahay telefoon ku waash telefoon waa warsadee wuxuu jiraa aqalka cadu wacaya marka telefoonka keenay sheekay ablaad idinaya waxa telefoonka keenay sirdoonka Israa'iil ayaa waxay soo ogaadeen oo Netanyahu u sheegeen in Israa'iil laga qarinayo uu Mareykanka rabo inuu nimanka leeshiyo Iiraaniyiinta inuu leeshiyo raba nuxnuxa socotaa leeyahay hoos Iiraan iyo Mareykan warnimay weydiinaya hal mar baashar akal loo baxo taagay ninkii Trump oo lagu dhagay caawa waqti dambana waxa shiri doona baarlamaanka Mareykanka coday u qaadi doonaan inuu asagu kooxdiisa guuleysatay in kale lama yaqaano inuusan awood dambe dagaalka uusan Iran uusan iska weerari karin oo xataa uusan garaacideeda mar kale uu kala tashanayo aqalka Congress marka culaysyo fara badan ay yimid dagaalka sidii loo maleynaayo ma maalinki shanaadu mara nimankii waaba soo karaar qaadanayaan dagaal muddo dheer aan diyaar u nahay marka ninkii Netanyahu aniga kaligay maaliga baxaya meesha sidee wuxuu jiraan maxaa loogu sheegi waay waa barooranay leedahay Al Jazeera ninkii waa qaylay haddaba marka aan tuso wararkii ugu dambeeyay Al Jazeera waxay soo xiganaysaa website ka yiraahdo Axios ee wararka u faafiya Mareykanka laga leeyahay Netanyahu waxa hadda ku qaylinaya aqalka cad ee dalka Mareykanka isagoo markaasi ka hadlaya wada hadallo sir ah oo u socda Mareykanka iyo Iran
haddaba sheekadan marka waxaa la sheegayaa waxaa soo helay sida website-ka Axios uu leeyahay mukhaabaraadka ama sirdoonka Israa'iil ayaa helay macluumaadkan shakiga ku abuuray Israa'iil waxaana la sheegay inay socdaan wada hadallo u dhaxeeya Tehran iyo Washington ninka Trump inuu ka lug baxo rabaa meesha وهدو كوبوتي وذاتكي اندلي alaabtaasuu rabaa isaga guul darra dhan ma ogola marka baashadu way soo dhawaatay guul darra iyo guul ay u dhaxaysaa had cid guulaysato bale marka ninkii Netanyahu marka waa qaylinaya wuxuu leeyahay war sidee wax u jiraan oo ku haya marka qodobka isaguna halkaas ay kaga gudbaya shirkii jaraa'idaan galaynaa 10 noo socda boogtii 10 subaxdii iyo 10 galabtii iyo 10 habeenkii leeyahay nimanka kala warkooda waa iska cad yahay Iran imaartii Israa'iil waa duqeynay Iran waa burburinay manasad sawaariikh meelaha sawaariikhda laga soo rido waxa ku hayaan warbaahinta reer galbeedku dhan ka hadlaysa laakiin nimankan waa imaanayaan xisaabtii saacadihii ka hor wixii dhacay lagu siinaa beetood ama saa u leedahay diba warbaahinta ka sheegay marka anagu waa ku xirannahay ciidanka ilaalada kacaanka Iran shirkiisa jaraa'id sida Al Jazeera ugu xiranna anaga marka kiisaaki waa aragnay kii galabtii barnaamijkii labaadaadii kugu soo gudbiyay kan caawana hadduu soo dhacay inta barnaamijka ku jiray haddaba marka aan idin tuso Al Jazeera oo warbixinta qayb kamid ah noo soo gudbinaysa qaybaha ugu muhiimsan waxay leedahay ciidanka ilaalada kacaanka Iran waxay sheegeen shirkoodii caawa jaraa'id inay ku weerareen maraakiib Mareykanka iyo Ingiriisku ay leeyihiin kuwaasoo hub u waday Israa'iil haddaba Ingiriiska iyo Mareykanka maraakiib hub u siday Israa'iil oo maraysay khaliijka ayay sheegeen in ciidanka ilaalada kacaanka Iran ay weerar ku qaadeen waxaana ay sheegeen iyagoo doonayay maraakiibtaas iyo isbahaysigoodu inay xoog ku maraan meesha la yiraahdo Hormuz waxay sheegeen inay markaa dhagaha ka garaaceen oo markaa maraakiibta ay khasaaro xoog leh u geysteen ciidanka ilaalada kacaanka Iran dhanka kale waxay sheegeen caawa warkoodii ugu dambeeyay inay rideen isla caawa dufcadii 18aad ee mawjado sawaariikh iyo drones oo ay ku garaaceen Israa'iil iyo saldhigyada Mareykanka waana qaybtii 18aad weerarka cirka Iran ay qaadayso oo loogu magac daray al-wa'd as-sadiq 4 وياي waxay sidoo kale caawa sheegeen hadalkoodii nimanka ilaalada kacaanka Iran inay bartilmaameedsadeen saldhigyada Mareykanka uu ku leeyahay Kuwait iyo Bahrain waxaana ay sheegeen inay ku weerareen sawaariikh iyo diyaarado drone ah saldhigyadaas iyadoo sidoo kale la sheegay gudaha Israa'iil iyaduna inay markaa weeraro ka fuliyeen oo ay weerarada ku qaadeen marka 10kii nimankii waa noo galeen waxay yiraahdeen maraakiib Mareykanka iyo Ingiriisku leeyihiin oo kuwa kala galbinayaan oo hub u wada Israa'iil ayaa meesha marayeen kuwa kalena waxay rabeen Hormuz inay ka gudbaan war waxa dhan waa isku darnooyin ninkii shirka jaraa'id qabanay ninka Afrika caadi ba wuxuu sheegay qaybtii 18aad haddaan darnooyin qayb waa idin sheegay dufcatu laga soo bilaabo koowaad dufcada labaad waxay isla socdaan marka gantaalo iyo drones marba qayba la diraya marka qayb walba magac ay leedahay barnaamijkii galabta waxaan ku soo qaadanay dufcadii 17aad ah hadda caawa waxa la diray dufcadii 18aad hawada gashay waaye marka warkii nimankii 10kii waxa ka baxnay ilaalada kacaanka Iran ciidanka Iran waa ka baxay waxaan galaynaa 10kii awlaadda marka caawa waxa war soo saaray kaliya Hezbollah kuwa Iraaqiyiinta war laga ma hayo iyaga waxaan arkay hadeer meel la yiraahdo Babil ayaa lagu duqeeyay maleeshiyada Iran taageerta ee Iraq marka nimanka iyagu sida Hezbollah oo kale uma awood badna laakiin aayadoodu waa qaadanayaan dhayay wax ka garaacayaan haddaba marka Hezbollah maxay sheegeen iyagana aan dul marno laakiin waa ka soconaynaa Hezbollah ayaan u galaynaa Hezbollah waxay sheegeen
in ay duqeeyeen isu imaatin kale maantay ciidanka cadowga ay iskugu yimaadeen deegaanka la yidhaahdo Bakriyaad Shimona waxayna sheegeen inay halkaa khasaare u geysteen ciidankaas sheekada xiisaha leh Xisbullah waxay yiraahdeen galabta waxaan isfara saarnay ciidamada cadowga si foolka fool ah ayaan isku fara saarnay yiraahdeen waxaan isticmaalnay bambooyinka iyo miinooyin dhulka yaala ciidamada cadowga oo isku dayay inay u soo talaabaan dhanka koonfureed deegaanka la yiraahdo Al-Khiyam oo Lubnaan ku yaala waxaana ay sheegeen in ciidamadoodu ay jilbaha u aasteen oo ay ka dhigeen kuwa dhintay iyo kuwa dhaawacmay ilaa caawana waxay yiraahdeen ishtibaakaat mustamira haddeer dagaalka waa socdaayde marka nimankii Xisbullah waa adeeganayaan Israa'iil waxay tiri waxaan gudaha u galaynaa ciidan lugta ah Lubnaan galaynaa marka ayagii soo socday nimanka waa la iska hortigay hadda markay shirkitaad markay qabanay waxay leeyihiin ishtibaakaat mustamira dagaalka wuu socdaa haddeer u socdaa marka meesha iyaduna nimanka wararkaas kooban ayay iyaguna soo direen